qof walba maqaamkiisa iyo waxaan ku salaamayaa mas'uuliyadiisa oo halkan ku fadhiyo intaa kadib farxad weyn bay runtii noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno oo aanu makhraati ka noqono dhismahan Safari Apartments 2 toddoba sano ka hor bay ahayd markii la sameeyay Safari Apartments 1 oo runtii sawirradii ugu badnaayeen la isu dira ahaa waagaas wadda sabku ma xoog badnayn emailada aad la isugu diri jiray apartmentskan si fiican u xasuustaa toddoba sano ka hor oo aad loogu wadaagi jiray in xamar sida ku socoto maantana sida uu sheegay General Bashir Safari Apartmentski postcardada lagu sameyn jiray xilligaas ee la isu diri jiray marka loo eego isagaaba ugu gaaban sagaal dabaq buu ahaa waxa yimi qaar ka sareeya waxa ka sii cajiibsan Safari Apartments 2 in laba la jeer lagu dhuftay oo 18 dabaq oo hadda marayo horumarka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxa jira baahi guud oo dalkani leeyahay oo ah guryaha gudoomiyihii gobolka iyo duqa caasimadda oo inala jooga gudoomiye magaaladan caasimadda markay ugu yartahay sanadkii waxa ka soo qalin jabiyay 10,000 ilaa 15,000 oo arday jaamacada 10,000 ilaa 15,000 ee soo qalin jabiyay marka laga reebo inay shaqo u baahan yihiin baahidooda labaad waa guri sababtoo ah halka family-ga iyo qoysku ka bilaabmay waxaan u baahanahay sanadkii 20,000 oo guri 15,000 oo guri inay inoo diyaar yihiin si dhalinyaradu ay guri u hesho ay qoys u hesho ay nolol u hesho qodobkaasi muhiim weyn buu yahay dadka caasimadda degan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah magaaladu 90 sano ka hor waxa laga yaabaa in 1 milyan oo qof deganayeen maantana 4 milyan baa degan guryaha la dhisay 30 sanana waxa weeye waa garan kartaa waxay ahayd inay population-ka iyo guryuhu wada koraan oo isbarbar socdaan waxaan rabnaa population-ka koray ee 4 milyan ah inuu helo guryihii u dhigmayay ee ay ku noolaan lahaayeen dhalinyarada sidoo kale waxaan ku waafaqsanahay General Bashir wasiir dawlaha howlaha guud inay guryuhu noqdaan affordable houses guryo la ijaaran karo ama la gadan karo haddii ay noqdaan qaar aan la ijaaran karin ama la gadan karin waxba tarimaya marka taana waan ku boorinayaa shirkadaha oo ay ugu horeyso shirkadda IBS inay guryuhu noqdaan guryo markaas uu faa'iidadu badanaysa qofka dhalinyarada $500 qaata wuxuu u baahan yahay ijaar aan 200 ka badnayn bishii la nolol buu rabaa qofkii waxaan rabnaa guryuhu inay noqdaan qaar la kiraysan karo waxaan rabaa ugu dambeyn hadalkayga ku soo gabagabeynaya waxa jira siraac ama loolan siraaca iyo loolankaasi waxa weeye xamar waxay rabtaa inay guulaysato ay hor u socoto cadowguna wuxuu rabaa inuu isbaaro u dhigto oo aanay guulaysan ummadda reer Muqdisho waxay rabaan rajo iyo horumar maanta aynu u joogno dad kalena waxay rabaan inay xamar noqoto meel dhibaato u joog ah waxa muuqata inay guulaysatay xamartii horumarka rabtay Muqdishadii horumarka rabtay Muqdishadii guusha rabtay inay guulaysanaysaa muuqata waxaanu dusha ka fuulnay Safari Apartments 1 runtii qofku wuxuu sooranayaa weerayo halkaad joogtaa taasi waxay muujinaysaa in la joojin kari waayay oo ay silsiladihii iyo xarkii oo dhan goosatay xamar oo ay diiday inay isdhiibto oo ay hore u socoto dhismayso dhaqmayso guulaysanayso qayrkeed caasimadaha Afrikana ay la tartamayso waan ku bogaadinayaa gudoomiyaha muddadii xilka uu hayay shaqada uu ka qabtay caasimadda waxaan rajaynayaa inuu sanado badan oo dambana inala sii joogi doono Cumar aad iyo aad baan u salaamayaa mar kale waxaan hambalyeynaya IBS mar kale waxaan hambalyeynaya bahda Safari Apartments mar kale waxaan hambalyeynaya injineerada iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin guul baa muuqata aynu halkaa ka sii wadno
jasiirana waa la isugu imanayaa cabdirasaaqo aad baa mahadsantihin